gudoomiyaha guddiga qabanqaabada ahna gudoomiyaha ku-meelgaarka iyo ku-xigeenadiisa xogayaha guud xildhibaanada dhammaan kasoo qaybgalayaasha odayaasha dhaqanka saraakiisha ciidamada iyo ciidamada bahda saxaafadda iyo dadweynaha kala duwan kasoo qayb galay soo dhaweynta aad iyo aad u mahadsantihiin runtii sharaf weyn ay intaa maanta inaan idinla joogo aadan uga mahad celihayaa soo dhaweyntan qiimiga leh ana og xilliga kulub oo aad meeshaan wax badan taagneedeen adinkoo dareenkiina uu yahay in la helo mataqaana axzaab siyaasadeed oo runtii dalka hore u sii wada insha allahu tabaaraka wa tacaala waa idinku soo dhaweynayaa xisbiga himilo kulley waa ladinkaga sheekay doonaa waana ka fogan doonaa laakiin munaasabadan waxaan ka dhigannay inay noo noqoto munaasabad mahadcelina marka mar kale qof kastoo mataqaanaa ka soo qayb galay waqti dheer bixiyey laga yaabo inuu cariiri la kulmay waa runtii uga mahad celinaynaa dadaalkiisaas waana wada joognaa insha allahu tabaaraka wa tacaala waxaan u malaynaa inaanan iloobin laashimiinta iyo mataqaanaa maxaan ku idhaahdaa sugayahanada oo runtii qayb weyn ka ah barnaamijka wacyigelinta iyo kor u qaadidda wacyiga dadka Soomaaliyeed meelo joogaanba marka waxaan idin leeyahay dhammaantiin guulaysta aad iyo aad u mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi